Soomaalidu waxay hore u maamahday lax walba meeshiis dhigta lagu gowraca. Tusaale kulanto haddeen u soo qaadano xagga iyo dhanka gabdhaha. Maanta bal fiiri gabadha Soomaaliyeed cizigeeda iyo sharafkeeda iyada ay ilaashan kartaa. Yani ma jirto qof maanta dhan tooshka dab qaadanayo ku dhahaya waxaan ka joog iyo waxaan ha sameynin. Bal maanta fiiri qof dhan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigtay qof weyn oo waxay raadaan oo u yeelay aqli iyo garaad wax walba ku garanaya. Haddii qofkaasi cizigiisa iyo sharaftiisa u ilaashan waayo ma garan karno wax lagu tilmaami karo. Bal fiiri maanta waxaan maqalnaa mararka qaar heblaayo waa la kufsaday, heblaayo sidaan lagu sameeyay. taasina waxa u sabab ah in gabadhaasi ay garan waasay cizigeeda iyo sharafkeeda ay ku dhex leedahay bulshada. Bal fiiri maanta tusaale yar haddaan u soo qaadano caaga biyaha ama caagada biyaha ee caafiga ee ku jira midka la gado 1 litir waxaa la gadaa $1. tusaale kalento dukaamada caadiga waxaa la gadaa waxay tahay waa $1. markaan ka soo tagno dukaanka marka imaanayaan dhanka iyo hotelka caagada biyaha ku ogeyd $1 halkan hotelka waxaa lagu iibinaa waxay tahay waa $1. haddana markii laga soo gudbo dhanka hotelka iyo dukaamadii markaad imaado airportka caagada caafiga ku ogeyd $1 iyo $1 waxaa kaga soo baxaya dhanka airportka wax aan la yaabto. caagada biyihii ku ogeyd $1 iyo $1 waxaa lagu leeyahay waa $3. weliba caagadiis biyaha adiga u baahan ama xayradaa haddana aad gadanaysaa. waayo tusaale kalento bal fiiri caagadaas biyahaasi marka hore waxay taalay darajo hooseysa dukaamada caadiga ah. sidoo kalento darajadii way ka soo gudubtay waxay imaaday dhanka hotelka caagadaas biyaha waxaa la gaday $1. darajadii dhexe way ka soo gudubtay oo waxay timaaday darajo mid ka sii sareysa. weliba adigoo u baahan aadan ka maarmi karin aad maxayrada caafimaad gadanaysaa. bal fiiri maanta adoo ruux bin aadan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay sidee qiimaha aad garan waasay sidee aad u fahmaysay qiimaha iyo ciziga sharafkaada ku dhex leedahay dadka bulshada. sharafkaaga adiga hoos u dhigi kara adigana maxayrada kor u qaadi kara. ugu mar walba sharafkaaga in adiga aad ilaashan karto. Assalaamu calaykum. Bye bye.